soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada filimkeena maanta fadlan waxaa ka codsanaya muuqaalka intaan idiin bilaabin like ina saarto haddii ay tahay markii ugu horeysa aanu soo booqatana channelka subscribe noo saar halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta ninkan waddada taagan waxaa lagu magacaabaa jack meeshan cidlada ayuu joogaa kadibna waxa uu isku dayayaa inuu halkan ka helo cid caawisa baabuurtii oo dhan waa ay dhaafaysaa mana jirta cid u joogsanaysaa sababtuna waxay tahay inuu taagan yahay wadda aad u khatar badan qof kasta oo waddada soo marana waxuu ku khasban yahay inuu dhaafo ilaa markii dambe gabadhan yarta ay farta dhexe u taagtay jack lama socdo xaaladda halkan ka jirta siday u khatar badan tahay weli waxauu iska dhex lugeynaya kayntii cidlada ahayd waa uu ka quustay inuu helo cid caawisa baabuur kasta oo halkan soo marna waa uu dhaafayaa ugu dambeyn waa uu iska soo dhaqaaqay waxauna soo garay wadadan kale nasiib wanaag waxa uu arkayaa gaarigan kusoo socdaa waa uu isku beegaya ilaa uu markii dambe gaariga xaggan istaagay ninkan iyo gabadhan ayaa isku dagaalaya gaariga dhexdiisa jack isla markiiba waa uu soo orday ilaa uu markii dambe isku dayay inuu ninkii la dagaalamo laakiin waa iska fujinaya waxa uu ku leeyahay naagtan waalan igala deeg waxa ina qabtaa xanuunka saykaha laakiin ma uusan fahmin jack gaarigiisa ayuu ka qaadanaya waxauna fuulaya wadada jack waa uu fiirinaya gabadhii ilaa markii dambe isbarteen halkan ayay sigaar ku cabayaan waxauna weydiinaya gabadhan waxay halkan ninkan usoo raacday laakiin markiiba waxay ku leedahay boyfriendkayga ayuu ahaa halkan ay isaga sheekaysanayaan baabuurtii oo dhanna waa ay dhaafaysaa jack waxa uu ku leeyahay maxay tahay sababta baabuurta noo dhaafaysa laakiin way qoslaysaa waxay ku leedahay wadadan waa wadda aad u khatar badan habeennimo ayay ku noqotay halkan ayay habeennimadii dab shidanayaan labadoodii waa iska fadhiisanayaan ilaa markii dambe ay sheekaysteen waxay weydiinaysaa sababta jack halkan uu ku yimi laakiin waxa uu ku oranayaa tareenka ayaan soo raacay kadibna boorsadeydii tuuga ayaa iga qaadatay warqadan ayay tusaysaa laakiin waa uu la yaamaya waxay tahay waana saxiixeedii waxay ku leedahay saxiixayga ayaa halkan ku qoray waxaana mar kasta baraktiis ku sameeyaa saxiixayga waa ku qoslaya ilaa markii dambe uu tusay baasaboorkiisii waxauna ku leeyahay kan keliya ayaa iga badbaaday halkii ayay habeennimadii iska seexanayaan waagii ayaa bariyey kadibna waa uu soo kacaya waxa uu weynaya gabadhii waa uu isku naxaya ilaa markii dambe ka helay iyadoo ku dabaalanaysa biyahan waa uu ku farxaya ilaa markii dambe ay ugu yartay inuu biyaha soo galo halkan ayay si wada jira ugu dabaalanayaan markii ay dabaashoodii soo dhammaysteen saaxiib yaal biyi ayay kasoo baxaysaa ilaa markii dambe ay waddada soo qaadeen dhammaantood iyagoo wada socdaa sikadiisa ayuu dhabarkiisa dambe wuxuu ku arkaya gaarigan soo socda gacanta ayuu taagaya laakiin gaarigi waa uu istaagayaa ninkan ayaa wata waxaan lagu magacaabaa grisad waxay uga sheekeynayaa xaaladda meesha ku haysta laakiin markiiba wuxuu ka oranayaa soo koraa aniga ayaa idin caawinaya laakiin gabadhana lagu magacaaba feroni ninka ayay fiirinaysaa waa ayna diidan tahay ninkan inay raacdo saaxiibkeed ayaa khasab ku tegaya ilaa uu markii dambe soo qasbay waxaanu ku leeyahay gaarigan waa inaan raacnaa si aan halkan uga tagno hadalkii ayay maqlaysaa ilaa markii dambe dhammaantood ay gaarigii soo wada koreen jack ninkan ayuu fiirinaya laakiin waxa uu ku leeyahay aniga ayaa idin caawinaya gurigayga ayaa halkan dhow ku yaala ugu dambeyn gurigiisii ayuu keenay kadibna gaarigii ayay kasoo degayaan waxaanu degan yahay gurigan qasriga ah xaaskiisa ayaa halkan ku sugaysaa kadibna gudaha ayay usoo gelinaysaa iyadoo aad usoo dhoweynaysaa gudihii ayuu soo galaya jack ilaa markii dambe ay keentay grisad xaaskiisii qolkii uu degi lahaa halkiiba ilbaabka ayuu xiranaya qolkiisa ayuu ku dhex jiraa ilaa uu markii dambe sariirta isku soo tuuray aad ayuu daalan yahay waa uu iska seexday maadaama uu aad u daalan yahay safar dheerna uu soo galay lugta habeennimo ayay noqotay maalintii dhan waa uu hurday ilaa markii dambe uu soo toosay habeennimadii kale sanduuqan ayuu furaya waxauna ku arkaya sawiradan ku jira labadan ciyaalka iyo sidoo kale grisad iyo xaaskiisii laakiin waa uu la yaaban yahay halkan ma joogaan wax caruur ah shaki ayuu ku abuuraysaa arrintaas laakiin markii dambe waxa uu imaanayaa grisad halkan ayay habeennimadii ku wada cashanayaan dhammaantood saaxiibtiina waa ay joogtaa cashadii markii ay dhammaysteen saaxiibayaal bannaanka ayay soo aadeen isaga iyo saaxiibtii waa iska sheekaysanayaan laakiin waxay u sheegaysaa inaysan jirin cid adduunkan saaran oo ay la walaal tahay waxay u sheegaysaa in walaalkeed ka yar uu gaari taraaga dusha ka maray halkaasna uu ku dhintay sidoo kale hooyadeed iyo aabaheedna waa ay dhinteen aad ayuu la murugoonayaa qisadan aadka u daran ee gabadhan ku dhacday jack guriga ayuu gudaha usoo galaya ilaa uu markii dambe lasoo fadhiistay grisar halkan jooga waxaana uu sheegaya inuu doonayo inuu berri meeshan ka tago maadaama faamilkiisii oo dhan ay ka walwalsan yihiin isaga iyo saaxiibtiiba inay israacayaan ayuu u sheegayaa berri dib ayuu ugu soo laabanayaa qolkiisii si uu seexdo habeennimadii labaad ayuu halkan seexanayaa ilaa markii dambe saaxiibayaal markii waagu baryay uu soo kacay jack waa uu soo kacay waxa uuna dhaqanayaa wejiga ilaa uu markii dambe yimi qolkii ay degneed saaxiibtii ilbaabka ayuu furaya laakiin waxuu arkaya inaysan saaxiibtiisa halkan joogin cabsi badan ayaa soo food saaraysa waxauna la yaaban yahay sababtay halkan uga maqan tahay ilaa markii dambe grisad uu yimi laakiin waxuu ku leeyahay aaway gabadhii isla markiiba grisad waxa uu sheegaya inay saaxiibtii sugi kari weyday maadaama uu hurdada ku dahay safarkeediina ay sii qaaday laakiin hadalkii waa uu aamini kari weynayaa ilaa uu markii dambe aad uga xanaaqay ninkii ayuu firinaya waxauna ku leeyahay waxaad ii sheegaysa wax suurtagal ah ma aha waa uu soo cararaya isagoo gabadhii raadinaya laakiin markiiba uu kasoo daba cararaya grisad waxauna ku leeyahay waa ay tagtay warqadan ayay ku reebtay ayuu leeyahay warqadii ayuu fiirinaya laakiin markiiba waxa uu fahmaya inay halkan halis aad u weyn ay ka jirto grisadna waxa uu ku leeyahay saaxiibta iyada ayaa kaa tagtay bannaanka ayuu ga soo baxay laakiin markiiba waxa uu fiirinaya warqadii waxauna arkayaa saxiix halkan ku yaala inaysan lahayn saxiixeedii hore ayuu fiirinaya waxauna arkayaa inay hawshan tahay hawl khiyaano ah laakiin intuu ku mashquulsanaa warqadda gadaal ayaa looga imaanaya waana la afduubtay isagoo ilbad lagu duray waxaana dhuunta lagaga duray ilbadan
dhulka ayuu ku dhacay markiiba waa uu imaanaya ninkan waxaa lagu magacaabaa dolphin gaarigan ayuu saaran yahay isagoo afka iyo gacmahaba ka xiran ninkanna waxa uu ugaarsadaa xayawaanaadka kala duwan gurigiisa ayuu keenaya waxaana yaala xayawaan aad u fara badan jack waxa uu la yaaban yahay ninkan sababta uu soo afduubtay laakiin ma yaqaana waxa ay tahay ninkan waxa uu doonayo isla markiiba jiirkan ayuu tusaya waxaanu ku leeyahay kan ayaad maanta cunaysaa waa uu karinaya ilaa uu markii dambe maraqiisii usoo dhigay waxaanu ku leeyahay waa inaad khasab ku cuntaa hilibkan jack waa uu ku khasban yahay inuu cuno hilibka jiirka isla markiiba odaygii waxa uu soo qaadanaya kaamirada waxauna ka duubaya sawiro iyo fiidiyo markii uu sawirada ka dhamaystay tuurta ayuu soo saartay isagoo lugihiiyo gacmihii ka xiran waxa uuna doonayaa inuu halkan ka kaxeeyo si uu geeyo gurigiisa irbad ayuu soo qaadanaya waxa uuna doonayaa intuusan kaxayn inuu ilbadan ku diro si uu u suuxo laakiin markiiba wuxuu arkaya gurigiisii oo qiiq badan kasoo baxayo isla markiiba uu soo cararaya waxuuna soo gelaya guriga wuxuu isku dayay inuu dabka guriga ka damiyo waana digsigan dabka saarnaa intii ku maqnaa digsiga ayuu iska furaya xarigii jack waxauna doonaya inuu meesha ka baxsado ugu dambeyn waa uu ku guulaystay jack waa uuna kasoo cararaya isagoo kaynta soo galay waa uu soo ordaya waxa uuna usoo socdaa gurigii grisad waxa uuna aaminsan yahay inuu halkaas ku badbaadi doono ilaa markii dambe ka arkay grisad iyo xaaskiisiiyo halkan taagan waxayna doonayaan inay magaalada aadaan gaarigooda ayay saaranayaan alaabtan halkan ayuu ku sugaya intay meesha ka baxayaan waxuuna rabaa inuu guriga galo ugu dambeyn markii ay ka tageen guriga ayuu gudaha usoo galaya waxauna baadigoobayaa saaxiibtii guriga ayuu soo galaya waa uuna baarayaa dhammaan guriga oo dhan isagoo isku dayaya inuu saaxiibtii helo ugu dambeyn qolkan ayuu furayaa waxauna isku dayayaa inuu saaxiibtii ka helo albaabka markii uu iska furay gudaha u galay waxa uu arkayaa saaxiibtiisa oo halkan fadhida waayna ku xirxiran tahay waa uu kusoo boodaya isagoo xarigii ka furfuray ugu dambeyn daaqada ayay ka arkaysaa way soo cararaysaa iyadoo saaxiibkeed soo kaxaynaysa gaarigoodii ayay dib ugu soo laabteen guriga waxayna doonayaan in alaab halkan ka qaataan jack qolkan ayuu soo galaya waxaana soo qaadanaya qorigii grisad waxauna doonaya inuu labadoodaba dilo halka grisad iyo xaaskiisii ay jarjarta korayaan waxayna jeekimayaan gabadhii meeshii ay ku xirxirteen intii ay kor ku maqnaayeen ayay gaarigiisii qaateen waxayna soo qaadanayaan gaarigii grisad jackna gaariga ayuu istaaraya ilaa markii dambe ay soo carareen markiiba grisad waa uu soo cararaya isagii xaaskiisii gaarigan kale ayay soo qaadanayaan waxayna doonayaan inay daba cararaan laamiga ayay soo wada korayaan labadii gaari jack waxa uu doonaya inuu meesha ka baxsado halka grisad uu doonaya inuu labadoodaba qabto qoriga ayay la soo baxaysaa waxayna doonaysaa inay shuud garayso laakiin markiiba gaarigii waxa uu gelayaa shil jack iyo saaxiibtii waxay galeen shil gaarigiina waa uu la dhacay dhaawac xun ayaa soo gaaray jack gaariga ayay kasoo saaraysaa saaxiibtii waxayna ku leedahay soo bax iyadoo qorigii gacanta ku wadaa waa ay soo cararayaan ilaa markii dambe ay soo galeen meeshan geerishka waana geerishkii uu joogay ninkii hada ee afduubtay ninkii ayaa arkaya waa uu soo dhowaanaya ilaa markii dambe saaxiibtii ay soo qaadatay qoriga waxayna ku leedahay isdhaqaajin laakiin markiiba jack ayaa qori lasoo baxaya waxauna ku leeyahay istaag odaygiina gadaalgadaal ayuu soo baxaya ilaa markii dambe dhulka ku dhacay waxaana qoorta ka gashay birtan aadka u weyn ee halkan taallay si accident ayuu ku dhintay mindi ayay soo qaadanaysaa waxayna dhammaystiraysaa odaygii gurigii ay joogeen ayay imaanayaan labadoodii grisad iyo xaaskiisii waa u qaylinayaan halkan ayay ku dhuumanaysaa ilaa markii dambe saaxiibayaal ay u yimaadeen laakiin markay aragtay waxay ugu yeeraysaa aabe sababta ugu weyn ee filimka saaxiibayaal waxay tahay gabadhan waxaa dhalay ninkan lagu magacaabay grisad islaantanna waa hooyadeed waa ay kasoo baxsatay waxayna qabtaa xanuunka sayka loo yaqaan waana gabar maskaxdeedu aysan caadi ahayn waa ay waalan tahay grisad iyo hooyadeed waa ay ka qariyeen xitaa jack waxay doonayeen jack inuu meesha isaga tago gabadhoodana ay ku haystaan guriga ninkan markii uu wadada istaagayay uu soo qaadayay gabadhiisa iyo sidoo kale jack gabadhiisa waa ay diidaneed laakiin jack xaaladan oo dhan lama uusan socon qoyskanna waxay dhaleen gabadhan iyo wiilkii isagoo yar ayay dishay waxayna qabtaa xanuunka sayka loo yaqaan dad fara badan ayay laysay booliiskana ma aysan sheegin faamilkoodu gabadhan waa dilaa aad u weyn waxayna dishaa cid kastoo wadadaa soo martaa jack odaygii irbadda ku durayay waxa uu soo diray grisad si uu meesha uga fogeeyo intii uu irbad ku duro grisad iyo xaaskiisa iyo sidoo kale odaygii dhintay dhammaantood waxay caawinayeen jack si aysan gabadhan waalan aysan u dilin jack waxayna isku dayeen inay ka fogeeyaan mana rabin inay sirta la wadaagaan jack markiiba gabadhooda ayay soo kaxaysanayaan waxayna soo saarayaan gaariga iyagoo socda waxay arkayaan jack oo qori wata waxauna ku leeyahay istaaga waxauna istaajinaya reerka isagoo ku amray inay gaariga kasoo baxaan way soo ordaysaa waxayna soo istaagaysaa dhabarkiisa labadii gacmood ayay ka xirxiraysaa dhammaantood laakiin habartii ayay isku daysay inay hadashay ilaa markii dambe hooyadeeda caloosha laad ka gelisay aabaheed ayay u imaanaysaa waxayna afka kaga xiraysaa sharooto si uusan u hadlin ugu dambeyn waa ay isaga soo dhaqaaqeen waxayna soo koreen gaarigooda aad ayay u faraxsan yihiin jackna waxa uu haystaa inuu kasoo baxay halistii aadka u weyneed laakiin markiiba waxay soo qaadanaysaa mindidan waxayna isku dayaysaa inay jack disho maadaama ay tahay qof waalan laakiin markiiba waxay dareemaysaa inay ninkan jacayl u qaaday waa ayna ka tanaasulaysaa inay disho waxayna rabtaa inay mustaqbalkeeda dama sii wanaagsato ninkanna ay guursato daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayuu kusoo gabagaboobay fikirkaaga qaybta hoose commentiga nagula wadaag ma guursan lahayd gabar noocan oo kala